wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo galinkii dambe maalintii shalay ahayd soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceri Gaabo ayaa waxa wasiirku saaka kormeer ballaaran ku soo maray xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Ceri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Sanaag Xasan Axmed Cabdulle iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro iyo horumarinta jidadka oo socod dheer ku soo maray wadada dheer ee magaalada roobkii waxyeeleeyay ee degmada gobolka Sanaag markaa wuxuu noogu yimid xafiiskii waan soo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhawow insha Allah xafiiska iyo magaaladaba ku soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah rabbil caalamiin wasiir waxaanu joognaa xaruntii wasaaradii gaadiidka iyo horumarinta jidadka wadarka xafiiskeeda dhul balaaran way haysataa waxaan u baahanahay horta in dhismaha lagu kordhiyo meeshan dayac tirbay u baahan tahay xaruntu hawl badan bay haysaa liisamadeen la qaataa la rabaa marka gaadiidkan soo xidhno meel lagu ilaaliyaa la rabaa marka xarunta horta in wax naga qabasan waan doonaynaa talabaad wasaaraddu gaadiid ma leh waa garab rarto iska lugayaan wali iyadoo gaadiidkeena gaadiid laataana waa arin yaro ma garanaysa mustaxila marka wasiirtaana waad noogu soo dadaalaysaa waayo kormeerka xigta magaalada gudaheeda qayb ka qaadan baabuurta bilaalan markaan ay soo qabtaan kuwa bilaasan inay soo qabtaan insha Allah taana waxaan doonaynaa inaad wax naga qabato sida kale wad hawshooda waa nimankaada in gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan isagoo wasiirku munaasabadaasi ka ballan qaaday gaari ay yeelan doonto wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Sanaag أنا وأنا أنت نشوفني وزارة واحد سيد واحد كوسو كل صدق شيء وحاجة هذيك إما قال كان بوجنا والله قبل حياة لا يسن كان والله قبل حياة حاجة ما كورها رجال تيجي تري وعشرة شغالات هو برن والله صوت هو بري سيستم كان وزارة كل شيء يسوق الداتا بيس كا سيستم كان يبغى حفيز كلا كان كتوجا وحكوا حري حفيز كان رجيس طلابك استيار كان كقاعدان يكتيفيتي كستوك كقاعدان هالك واحد لقوا قاعدين يرجيسه سيدا كلا امتحان كأرض لقى قاعدة أيوه يعني دراولك waxa xarunta ayaa sii deynaysa runtii xagga adeega waan ku dadaalay baahida jirtay xagga gaadiidka iyo dhismahana insha Allah waan soo dadaalaynaa magan ka wada hadlayna sidii gobolka lagu keenin lahaa gaari qaarada yaraan fiicma gobolka Sanaag gobol ballaaran marka waxaanu garanay gaari fool daraafa oo xaajiyada oo double cabin ah in gobolkan la keeno insha Allah dhaqsan u keenaynaa waxaan aaminsanahay qofkii siduwaha gobol jooga inuu matalo wasaaradii عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالمي هوريال تي في عري قابو.